waa galabnimo khamiis ah bisha Novembarna waa 9 barnaamijka dunida iyo maanta waxa si toos ah uga imaanaya magaalada Hargeysa halkaas oo gabagabo uu marayo ololaha doorashada madaxweynenimada ee Soomaaliland barnaamijkana gabi ahaan waxa uu ku saabsan yahay dood dhexmaraysa saddexda murashax ee u tartamaya madaxweynenimada ayagoo ka hadli doona qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda sida go'aansho iyo ictiraaf raadinta sii daba dheeraanaya xasaradaha ka aloosan mandiqada ama ha noqdeen qaabka ay ula tacaamuli doonaan gobolada Soomaaliyeed ee jaarka la ah ama khilaafka khaliijka ee saameynta ku yeesha mandiqadan dawlad wadaaga iyo isla xisaabtanka arrimaha ijtimaaciga ah iyo qodobo kale qodobadaas iyo qaar kale ayaan ku gorfayn doonaa doodan oo sidoo kale toos aad uga daawan kartaan Facebookga BBC Somali iyo telefishinada Home Cable iyo SBC hase yeeshee marka hore aan ku hormarno wararka caalamka magaalada London waxa ka soo jeedinaya Cabdinuur Sheekh Maxamed Cabdinuur xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneen ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobilkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobilkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International ku isticmaal mobilkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadalo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneen ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobilkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobilkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International ku isticmaal mobilkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadalo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group somtel tab lagugu adeegiyo toban taabo cilmi baa leh tamateed iyo xooguna tabta weeye hilaacee Somtel yaan la moogaanin sarcadii adduunkee u saraysay internet adeega 4G oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horeysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda Somtel adeegan oo ah mid xawaarihiisa ama speedkiisa uu xoog u sareeyo seconkiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobilkaaga iyo flashta internetka meel kasta iyo goor kasta video call 4G جندوجان حركية كبيرة لأصفر بوروسيا اللي وسع ليفاندوفسكي جول
adeegyo sarreeya internet casri ah oo xawaarihiisu sarreeyo qiimo macquula oo loo daneeyey dadweynaha mar kasta meel kasta goor kasta sakan kasta iyo saacad kasta ha moogaanin somtel 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 tab lagugu adeegiyo toban taabo cilmi baa leh tamateediyo xoogguna tabta weeye hilaacee somtel yaan la moogaanin sarcaddii adduunkee u sarraysay internet adeegga 4G oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horaysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda somtel adeeggan oo ah mid xawaarihiisa amaba isbiidhkiisa uu xoog u sarreeyo sekankiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobilkaaga iyo falaashta internetka meel kasta iyo goor kasta فيديو كول 4G جوندوجان حركية كبيرة لأصفر بوروسيا اللي وسع sidii aan hore u sheegnay doodan waxa ay dhex maraysaa siyaasiyiinta ka socda saddexda xisbi ee Soomaaliland ee u tartamaya madaxweynenimada kuwaas oo kala ah مرشح مدحوينه فيصل علي ورابه مرشح مدحوينه موسى بيحي عبدي او كسعود حزبك كلميه iyo مرشح مدحوينه عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو oo كسعود حزبك wadani dhamaantood halkan ayay fadhiyaan markii ugu horeysay waxaan jeclahay inaan idin soo dhaweeyo idin kaga mahad celiyo sida sharafta leh ee aad nooga ogolaateen inaad doodan nagala soo qayb gashaan waa doodii ugu horeysay ee nooceeda ah ee BBC ay abid qabato waxaanan jeclahay inta aynan doodda u guda gelin inaan xoogaa yar xusno aan isxasuusino qaabka ay dooddu u socon doonto hanaanka ay dooddu u dhici doonto ayaa waxa uu yahay in qaabka su'aalaha uu noqon doono mid waafaqsan hanaankii guddiga doorashooyinka uu dejiyey ee markaasi la xiriiray qaabkii qoratuurka ahaa ama kambeynka aad ku soo gasheen ama doodaha aad uga qayb galayseen ee ah in Faysal uu hadalka marka hore ku hormaro muusana uu ku xigsado Cabdiraxmaan uu qofka saddexaad noqdo marka murashax kasta waxa uu yeelan doonaa daqiiqad iyo bar in su'aalaha uu kaga jawaabo taamicneedu ma aha in aadan naqdin karin ama aadan waxba ka oran karin jawaabta murashaxa kale hase yeeshee waxa reeban dooddu in ay u ekaato in laba murashax ay dhan u badanayaan ama murashax si gaar ah loo bartilmaameedsanayo ama la buuranayo marka inta waan naga xusuusin doodan u guda galaynaa hadii uu eebbe idmo waxaan ku bilaabaynaa in arrinta ku saabsan gooni isu taagga Soomaaliland 1991 ayay arrintan ku dhawaaqday Soomaaliland ilaa iyo iminkana wax ka soo naasacadaaday ma jiraan oo aqoonsi ah oo la hayo inkasta oo hanaan dawladeed uu ka hirgalay iyo kala dambeyn oo iminkaba doorasho ay dhacayso oo dimuqraadiyadna ay meesha ka jirto Faysal ayaan doonayaa haddaba inaan ku hormaro muddo rubuc qarni iminka ka badan ayaa la baadigoobayay in ictiraaf la helo adigu haddii aad madaxtinimada ku guulaysato maxaad doonaysaa inaad samayso si aqoonsi aad u keento bismillaah raxmaan waxa weeye horta aqoonsiga Soomaaliland waa sharci adduunka oo dhan sharciga u taala u ogoshahay charter EU waa ogoshahay ka United Nations waa ogoshahay waxa weeye Soomaalina wax naga dhaxeeya ma jiro leverage leedahay nagu leedahay ma jirto dawlad baan la dagaalanay dawladii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu naga siiyay guushii way ka dhacday meeshii Soomaaliya hadda ma jirto wax Soomaaliya yiraahdo been baa loo magacaabo dawlad aan jirin la magacaabo la aqoonsaday marka waan loo hawlgelin magaalada reer Soomaaliland dawladii iska dambeeyay uma hawlgelin iyaga isku meeraystay waxaan ku kalsoonay insha Allah ta'ala 2019 concept kan sameeyay two state solution yiraahdo inaan adduunkana ka iibiyo Soomaaliyana ka iibiyo insha Allah ta'ala on soo afjaro muranka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya in ahaan wax jira ee wax la abuuray ay tahay oo maanta dawlad aanu haysanaa Soomaaliya dhisan ma jirto iyagiiba gacanteeda u baahan marka waxaan ku leeyahay arrinta waxa weeye dawlad midnimo qaramaan dhisay insha Allah ta'ala waxaan kala saarayaa mucaariyo muxaafid waxa ilaaban joojinayaa wax qof kasta waxaan ka dhigayaa inuu dawladda soo timaado oo dawlad technocrat aqoon leh ayaan sameeynaya oo xuquuqdeeda doonataan doonaya oo ku soo celiya Soomaaliya sharafta ku lahayd geeska Afrika Soomaaliya dhan ay sharaf ku yeelataan doonaya insha Allah ta'ala mahadsantahay Faysal aad iyo aad u mahadsantahay Muuse Biixi waxaad doonaysaa qaab noocee ayaad doonaysaa in aqoonsi aad u keento بسم الله الرحمن الرحيم
marka hore kuguma raacsanay aqoonsiga somaliland waxaa kama soo naasacada soo naasacad yihiin waa hawl socoto wax badan laga qabtay sida loo raadinaya annagu qorshaha iyagu yahayna waxa weeye laba wadaanu raacaynaa waa ka koowaad waxaynu u gudbinaynaa arrinta iyada afrika waxaa ka bilaabaynaa igad iyo midowga afrika deetana waxaanu u gudbinaynaa caalamka kale waayo waa arrin afrika marka halkaasaanu xoojinaynaa horeba arrintaas waa u jirtay laakiin hadda halkaa xoog baanu saaraynaa qodobka labaad waxa weeye waxaa bilowday inkastoona midha dhalin wadahadallo u socday soomaaliya iyo somalilan wadahadalladaa waxaanu aaminsanahay fadhiid ka noqdeen dhinaca soomaaliya oo aan si hagarla uga howlgelin waxaa kaloo aanu u aragnaa halkii lagu qabanayey oo teerkay ahayd in ay wax dhexdhexaadin ama facilitation ama waxale waxay ku kordhisay aanay jirin wadahadalladaasi inay hore u maraan sidaa darteed waxaanu leenahay arrin kastoo adduunka ka dhacda wax lagu dhameeya wadahadal marka inaan wadahadalkaa geyno caalami ah dalalka jaarka iyo kuwa xoogga waaweyn iyo caalamkuba dhex yimaadaan oo aanu si wacan u garnaqsanno taana waanu xoojinaynaa waa hagaag waa mahadsan tahay muuse cabdiraxmaan cirro qaab noocee ayaad doonaysaa aqoonsi inaad ku keento somalilan bismi illahi raxmaan raxiim qaabka aanu u howlgelaynaa mid waa gudaha midna waa dibadda gudaha somalilan waxaanu doonaynaa inaan noqonno dowlad sharciga ku dhaqanta muwaadiniinteedu u siman yihiin xuquuqal insaanka ilaalisa saxaafadda xortaa ilaalisa intaa ka bacdi waxaanu doonaynaa inaannu dowladaha aanu jaarka nahay iyo dalalka auda iyo igad xidhiidhka aanu lahayn la kordhiyo wixii tallaabooyin hore loo qaaday ee audu qaaday ee ahaa xaqi raadintii arrinta somalilan dib loo soo cusboonaysiiyo waxaanu doonaynaa xidhiidhkii aanu la lahayn dalalkaanu saaxiibka nahay in la soo nooleeyo oo hoosu dhac badani ku yimi waxaanu doonaynaa in wixii naga xumaaday iyo sababtii u socon weyday ictiraafka somalilan waxaanu qabnaa in dib loo eego waxaanu qabnaa in somaliland wax badan qabsatay oo lagu aqoonsan karo hase yeeshee beesha caalamku aanay u dhega nuglaanin somalilan waayahay saddexdii labadiina dambe muuse iyo cabdiraxmaan inta badan waxaa soo celceliseen beesha caalamka iyo igad iyo laakiin waxaan ogsoonnahay in tobannaankii sana ugu dambeeyey waddamo aan badnayn oo dunida ay kala go'een sida bilmatel in east timor ay ka go'day indonesia south sudan inay ka go'day suudaan laakiin dhammaantood qaabka ay u go'een marka la fiiriyo waxay ahayd qaab ay raalli isaga ahaayeen waddamadii kala go'ayay marka soomaaliya markii teeda aan ka hadlayna iyo somalilan ma jiraa wax qorshe ah faysalan ku laaban doonaayo bilaabi doonee ma jiraa ilaan adinkay dan isaga kiin xihan tahay inaad meel wada fadhiisataan oo aad ka hadashaan bal inaad kala tagtaan faysal anaga iyo waddamada aad sheegtay isku mid maaha waddamadaas waxa weye way kala adkaan waayeen waxaa la joojiyey dhiigga waa la dhex galay meel dhexa la isku yimi waqti baa la siiyey south sudan iyo timoro annagu dowladdii waanu ka adkaanay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilahay baan siiyey guusha wax allaale waxay maanta soomaaliya nagu leedahay leverage amba ay awood nagu leedahay xoog naguma qaadi karto dhaqaalo naguma samayn karto dowladaha wata ee danta gaarkaa wata ee ictiraafay ayuunbaa noo dabraye oona daba sida dowlad aan jirin waxa weeye arrintani waxa weeye arrin xaqa waan loo dadaalgelin waan loo hawlgelin annagaa isku habsaanay gudahayaanu hagaajinay insha allahu tacaala waana imanka khaatuma hadda heshiinay somalilandoo midaysan oo keligeeda iyaan dowlad midaysan oo qaran u samayn doona insha allahu tacaala wax iyagoo adduunkan weydiisan doona insha allahu tacaala soomaaliya wadahadaladeeda iyadaan horta hagaajinaaba iyagaan doonay inaan u qabanno shir u qabanno halkan ugu qabanno oonu dowlad u samayno soomaaliya ah oonay ku jirin kuwan somaliland meesha u guriga doonta aanay ku jirin oo mid oo keligooda markaasaanu danta soomaaliya ka hadli doonaa markaasaanu iyaga odhan doonaa okay annagu waxaan saddex dowladood soomaaliya
oto jabuuti iyo soomaaliya maxayd u haystaan waanu isqancin doonaa waxaan jeclay inaan qancin doonaa insha allahu tacaala laakiin marka hore waan iyaga hagaajiya anuu oday soomaaliyeed baan ahay waxaan u sharaxanay soomaalo dhan baan sharaxanay meeshii soomaali baahi ka jirta waan gelaya insha allahu tacaala halkan baan isugu yeedhaya insha allahu tacaala waayahay muuse ma arrintan ma kala hadlaysa soomaaliya mise sida faysal uu yidhi waxba isagama keen xidhan horta dowladahan aad soo qaadee kala go-ay is ixtiraafay labadii dhinac ee ishayey ayaa labaduba bad qabeen ama dhinac bad qabay oo kii kala ictiraafay eritrea iyo ethoobiya oo tii weereyda ayaa ogolaatay eritrea east timor dowladda ay ka goday indonesia ayaa bad qabtay oo fayoobay oo talinaysa oo arrintii loola tago oo ogolaatay south sudan sidoo kale suudaantii weyneyd baa laga go'ay markaa iyadii waa xaqbashay tani way ka duwantay laba arrimoodba waa marka hore dhinacan dantu nagaga xidhan tahay ee soomaaliya ah iyagii baa 20 sano burbur ku jira marka caalamkiina iyagii lama tashan karo oo iyagii taladii ka maqantay iyagina waa burbursan yihiin marka xaggooda taladu ka adkaatay oo waxba la wadaagi kari lahayn caalamkuna ilaa iyagii buu dhisayaa kolbalay bal cid laga hadlaa horta ka soo baxdo wada hadal haa waa la hadlaynaa danba iska kala xiran isma nabcin waa isla dadkeennii taladeeni baa isqaban weyey dowladda aanu dhisanay baa duntay marka waa in mid waliba sideedii u noqota marka waxa weeye hadalka waa la wada hadlaya laakiin waxaanu weli 25 sano waxaanu u xanibanahay dhinacii kale ayaa burbursan oo waxba laga laayay laakiin wada hadal waa in lagu dhameeyaa wax walba hay cabdiraxmaan cidro bismillahi raxmaan raxiim wada hadalka somaliland iyo soomaaliya xukuumadda hadda joogtaa bilowday laakiin shacbigu ku raacsanaa in wada hadalka la bilaabo waxay ila tahay waxaa loo baahan yahay in gogol xaadh wanaagsan loo sameeyo wixii wada hadalee dambe waanu qiimayn doonnaa wada hadalladii hore iyo sababtay midho u dhali waayeen arrimaha somalilan waxaan u qaban doonnaa shir qaran oo lagaga hadlayo arrinta ictiraafka marxaladii uu soo maray wada hadalku loo baahan yahay wada hadalkii la sii wado waxaanu qabnaa in wada hadalku uu sii socdo laakiin waxaa loo baahan yahay in gogol xaadh wanaagsan loo sameeyo si uu yeesho midho dhal haddii ilahay ka dhigo ajendaha somalilan waxa weeye in la helo dal qarana oo somaliland la yidhaahdo oo beesha caalamku ictiraafsan tahay ama laba dowladood oo jaara ah oo walaalo ah oo labaduba aqoonsi haystaan mashkiladaha soomaaliya way jiitameen oo la soconnay iyagana waa u ducaynaynaa in ilaahay mashkiladda ka saaro hadalkaaga waxaan kala dhex baxay in ay jirto rajo ah in adinka iyo soomaaliya aad wada hadashaan oo wada hadallada ay sii socdaan wada hadalka in la sii wado annagu waxba kama qabno laakiin waxaanu doonaynaa qaran somaliland la yidhaahdo inuu wada hadal ka soo baxo oo ictiraafkiisa leh oo siyaanadiisa leh muuse intaanan faysal ku laaban waxaad tiri wada hadalladii fadhiid ayay noqdeen wadda nooceeya ayaa haddii madaxweyne aad noqoto u maraysaa wada hadalladaas in la sii wado marka koowaad waa in dhinaca muqdisho laga helaa dowlad adag oo wax ka guwi karaan oo dadka u guryihin ma kismaayaan la hadlaa ma baydhabaan la hadlaa ma garow waan la hadlaa mise xamar mashkiladda caalamku uu leeyahay nimanka wada hadla waa in iyaga la helaa cid horta la doortay ummaddu dooratay go'aan leh kalsoone leh oon hadal la geli karo in la wada hadlaa waanu ogolleh oo bini aadmu wixii dhex maraba hadal ku dhammaysto laba meesha lagu hadlayana waa inay tahay meel lagu negasheed garanayo oo dadka wada hadla idiin dhexayso oo laydiin garanaqayo ee aanay noqonin idinku sheekaysta si turkiga ka dhacday waaya arrintaas halkaas aan kaga gudubno qodobka kale ee aan u gudbaynaa waxa uu yahay arrinta ku saabsan xiisadda ka taagan khaliijka xiisadda waxa ay ku soo faaftay mandiqadan waa aragteenoo soomaaliya dowladdii dhexe mowqif ayay qaadatay inay dhexdhexaad ka noqoto dowladihii kale mowqifyay kala qaateen dhinacyay kala raaceen somalilan oo mandiqadan ka mid ah waxa ay la safatay sacuudiga iyo imaaraadka marka la eego haddaba mushkiladaha ku gadaaman somalilan gaar ahaan midda khaliijka faysal cali waraabe weji nooceeya ayaad doonaysaa inaad u yeesho xiriirka aad la leedihiin waddamada khaliijka ee khilaafka uu dhex yaallo si aad u xaqiijiso in xukuumaddaada aysan lugaha la gelin
dagaal jiitamo oo daba dheeraada oo aydan shaqo ku lahayn waa horta mida annagu labanu la geli mayno dagaal jiitama kana midnihin dagaal ka socda khaliijka laakiin annagu markay isqabsadeen walaalaha reer carabtu waxaanu eegnay waddanka annaga danteeda ku jirto soomaaloo dhan danteeda waxay ku jirtaa imaaraadka markii adduunka oo dhan laynaga xidhay imaaraadka maanta inta baaxmisho inoo joogtaad ogtahay xoolaheenoo dhan waxaan u dirnaa etoobiya bahashii sacuudigaan u dirnaa intaasoo waxaan leenahay intaasoo qof reer somaliland oo ilaa xitaa malik sacuud baan la soo shaqeynaa la soo shaqeynaa awooyaasha la soo shaqeeyeen waa waddaanu isku xidhnay dhaqaalaheen isku xidhan yahay marka anagu waxaan raacnay xulufadaasaan raacnay xoog weyn baan raacnay gadarna kuma xumin laakiin waxaan anagu raacnay waddanka annagana sida idinkoo kale naguma qasaan taariikhda somaliland eeg anaga dad loo digteed gareeya ma nihin snmta qaawan oo keliya taagan ayaa xitaa diiday berigii inay waddano u digteed gareeyo annagu ummad waxaan nahay maskax furan oon weligeedba loo digteed gareen anugu taageerada halkaasaan saarnay haddana gacan naguma leh siyaasaddeeda maanta taagan naguma leh saddexdeeda musharax mawji anugu garan maayo dee dowladda soomaaliya lagu xanta inay meel ku jirto laakiin annaga imaaraadka sacuudiga midkaayna kuma leha gacan naguma leh laakiin mowqafkaanu qaadanay waa mowqafka labada coalitionka oo danta Soomaaliya ku xidhan tahay danta Soomaaliya oo dhan ku xidhan tahay xoolaha kaliya haddaad eegtid gaar ma xoolaha ka qaadata way muuse waxaan u dhawaataa Faysal Sacuudiga iyo waxaan xiriir wanaag oo dhaqaale leh oo si hore taariikhi leh inkastoo aan mid aqoon wada lahayn sidaa darteed markaanu qiimeynay xaaladda xisbi ahaan iyo shacibhaan aad u darisnay waxaan isla garanay inaanu taageero xulfada ku jiraan sacuudiga imaaraadka waad qadsantahay cabdiraxmaan mowqif ka duwan miyaad adigana haysaa bismi illahi raxmaan raxiim annagu xisbi ahaan horta dalalka aanu jaarka nahay ee khaliijka ka mid yahay dalal lama colnihin colaadna uma hayno somaliland mandaqaday ku nooshahay ama ay juqraafi kale ku taallo waxay jaar la tahay yeman iyo dalalka sacuudiga iyo imaaraadka taariikhiyanna yemanna xiriir wanaagsan baa ka dhexeeyey somaliland oo ka daaweyn ka labada dale kale ka dhexeeyey anna waxaanu qabnaa inaanay dani ugu jirin geeska guud ahaan in arrimo military oo keeni kara dagaal ay dani ugu jirto guud ahaan mandiqadan wixii ganacsiya iyo horumara annagu xisbi ahaan waanu soo dhoweynaynaa wixii investmenta ee dalka la gelinayana waanu soo dhoweynaynaa laakiin sharciyan waxaanu doonaynaa inay shuruucda dalkana waafaqsan yihiin heshiisyadiina ay yihiin kuwa transparenta oo shacbiga iyo baarlamaankuba ay og yihiin intaadan ka bixin waxaa jira imaaraadka inuu dhisanayo saldhig military dekedii berberena waa uu maamulaa taa beddelkeedana somalilan dhaqaalaha ka soo gala adiga haddii aad ku guulaysato arrimahaas sidee wax isugu xiirinaysaa u daalacnaasiraysaa dantiinnii adinkoo fiirinaya iyo masaalixdiinnii haddana sidee isugu keeni lahayd in howlahoodana ay u meel maraan adinkana tiinni aa meel marsataan marka koowaad wixii maalgelina ee somaliland la gelinayo ee shaqo abuuraya ee horumar keenaya waa soo dhoweynaa kama soo horjeedno sidaanu sheegnayna waxa u baahan yahay dhammaan mashaariicdaasi inay yihiin kuwa sharciga waafaqsan oo heshiisyadaasina ay yihiin kuwa transparent oo la arkay xukuumadda waddani hadday dalka timaado way eegeysaa dib bay u eegeysaa haddii maslaxadda somaliland ay waafaqsan tahayna way sidaasay ku qaadanaysaa haddii aanay maslaxadda somaliland u baahan tahay wax laga bedelana dib eegis baan ku sameynayna waayahay muuse ma halkaas wax ka odhan lahayd waayahay waxaa jira eedaymo inkastoo aysan idin khusayn adinka haddana ah in dhaqaale uu ka soo galo somalilan waddamo saaxiib la ah dhaqaalahaasna uu marka dambe ku ururo dad gaara jeebkood marka si aanay taas u dhicin dowladdaada haddiiba aad guulaysato maxay ka qaban doontaa
horta arrin cabdiraxmaan ka dhawaajiyey baan doonaya inaan saxo waaya cabdiraxmaan wuxuu yidhi heshiisyada lala galay DB World iyo heshiiska saldhigga waa in dadka la hor keeno ay transparency sharciga la mariya waxaanu ognahay inuu ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ee ansixiyey dhammaan heshiisyada iyo shuruucdooda haddana wuxuu leeyahay haddii waddani qabsado dib baanu eegnaado waxbaa qaldan labada goor kuwa qalday baanan gelin horta marka waxa saxa wixii heshiisii la gelayay dowlad shisheeye sida uu dhigaayo distoorku in baarlamaanka la mariyo baarlamaanku oggolaada ama uu diido hadduu oggolaadana waa arrin sharci ah taa intaasaan ku dhaafayaa ta kale mid kuguma waafaqsani dowladaha aad saaxiibka tihiin wixii faa'iidadeed ka soo gala ama shirkad wadaaga siday DB World ha noqoto oo macaashkeeda yahay ama saldhig la kareenaya ha noqoto oo faa'iido laga hela cid buu jeebkeeda ku ururaa ereygaasi meesha kuma jiro haddaad inoo soo caddaysa adiguna waa ahlan wasahlan dowladda mar walba waa la xantaa haddii uu jirana waa khalad waa la qabanaya waa la saxaya musuqu halku joogo waa inaan la dagaalanaa musuqu waa aafada dowladaha weliba soo koraya burburisay waanu ku jiraa mar walba uu ku dhex jiraa annagu haddana waa bilow la dagaalanka oo waxaanu samaynaa hay-ad la idhaahdo maamul wanaagga iyadoo odhitkii iyo hay-ad dagaalamaya joogaan haddana waa sii xoojinana waa la dagaalamanaa waxaananu aaminsannahay meesha uu musuq ka jiro qaran ka jiri maayuu ka dumaya marka wixii jirana waa lala dagaalamaya faysal dhinaca waxsidama marinta arrintan hadda uu soo qaaday muuse dowladdaada maxaa u qorshaysan inay wax ka qabato haddiiba aad guulaysato horta waxa weeye su-aashan anay ugu fiican tahay laba niba waxay ka tirsan yihiin dowladda hadda jirta midna waa sharci dejintii midna waa xukuumadda ruulin baadhiga weeye waaya iyagu waxba bedeli maayaan runtan kuu sheegayaaye haddii wax ku dar lahay bedel lahaayeen laakiin anigu waxa weeye dalkan waan hagaajinaya insha allahu tacaala dadkan midnimadiisna ka shaqaynaya sharaftu ku lahaa soomaalida dhexdeeda iyo geeska afrikan ku soo celinaya insha allahu tacaala musuqmaasuqan aad sheegaysaana part of nolosheedii buu noqday oo waxaan noqonay we live with corruption baan nahay waa iska ogolaanay laakiin anagu insha allahu tacaala waan la dagaalamaynaa zero tolerance baan samayn doonaa insha allahu tacaala waxaanu ka baxaynaa kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka dad iimaan leh oo wanaagsan oo ilaahay ka baqaya ayaanu meel kasta u dhiibi doonaa labadan qolo waxa weeye iyagu ay hadday ku jiraan dheeriga ku jiraan waxaa lanagu caaya DBna lacag lagama qaadan anigoo ag fadhiistay maalintii la saxiixay xitaa la yidhi lacag buu qaatay oo shaxaadku igu soo batay oo albaabka telefoonka xidhay wax musuqmaasuq halka ka yimid jiro 10 milyan baa keeno 10 milyan waa tii inanta Samson soo bandhigtay sidoo kotorban lacag soo qabatay waa tii tilmankii dadkiisa oo qancay taa lacagtii marka waxa soo dacaayada xusbiga wadanu ka soo horjeeday maalgashi ka soo horjeeday beeska ka soo horjeeday ayaa waxa faafiyay wadacaayada marka dalka oo dhan xumeynaysa in xumeyneen wadan kulmiye xumeyneen ummadda oo dhan xumaysaa weeye DB waa baanu leenahay wax baanu idin saxiixna maxaa noo maalgelin weyn anaga waa tabina wala war xagaa ka dhacdeen war xagaa beeska ka dhacdeen an ilaa haddana wax naga soo gaaray ma jiro waaya u kala naga jawaabo marka bismillahi rahmaani rahiim saldhigga heshiis la keenay ma jirin waraaq af Soomaali ku qoran baa la keenay in labadan oday la tusay war uma hayo heshiiskaas baarlamaanna lama keenin mudanayaashii soo jeediyey in heshiiska la keenana waa tii feerka iyo laadka lagaga saaray golaha marka haddii muuse la tusay heshiiska anugu ma arag anaa guddoomiye baarlamaanka waa runtii dekedana maalgashigeedu heshiis baa la keenay oo aan originaal ahayn heshiiskii rasmiga ahaa lama keenin waxa la yidhi marka la soo saxeexo baa baarlamaanka lagu soo celin doonaa lagumana soo celin lahaa hadda su'aal hal weydiin odayaashu odayga su'aal baa iyaga ku noqnoqday meeshu xaqalqalinka markii la kala qaadanay waa joogeen labaduba marka taa heshiiska waxa weydiinaya markaad chairmanka baarlamaanka ahayd ee aad guddoominaysay wixii saldhigga heshiiskii la baaskareynayay wixii aad baaskaraysay ummadda u sheeg ilaa annagu baan akhriya adaa xilka hayee markii saldhigga la baaskareynayay horta anigu ma jaargarayn ciddii jaargaraynaysa waa la garanayaa anna waan ka baxay maalin guddoomiyaha baarlamaanka ma ahay guddoomiyaha golaha wakiiladaan ahaa guddoomiyaha baarlamaanka saleebaan baa waayahay aad ayaad u mahadsantihiin jerman magaalada chamber isagu waxa weeye shaqadiisu inuu dadka ku dhawaaqo adduunka jerman ka baxay chamberkiisii
what the history of mataqaanaa speakers adduunka ayuu soo geliyaa muuse maxaa imanka saa sheegay iskugu tegi mayne laakiin wixii dee saxan sheegaynaa anigu waxaan ka qayb galay bayska ayaan ka qayb galay negotiationkiisii waxaan ku negotiate garaynay heshiiskii uu baarlamaanku baasgareeyey qodobadii frameworkaas baanu heshiiska ku galay oon qodob u eegnay intaasoo loo yorbaa joogay wax lanagu xaday ma jiro marx nagu xaday ma jiro waxa weeye caadada dalka waxa weeye haddaan qofkaasi ku jirin arrintaas inuu ceebeeyaa weeye marka waxa weeye anu waxaan u arkaa cabdiraxmaan inuu isku sameeyo contradiction chairman layidhi ka soo baxkay oo chair garaynayo chamberkiisi chairmanku inuu neutral noqdaa go'aanka MPyada waa inuu ku dhufto baaqayla dooda yeysan naga aadin dhinaca fadhiyada baarlamaanka iyo doodahooda qodobkii aan ku taagnayn waaya aan kugu soo gabagabayno haye waxay la tahay faysal heshiis la keenayna heshiis lama keenin waa ku celinaya waaya heshiis lama keenin wixii la keenay waraaq af Soomaali ku qoran bay ahayd maxaa ku qoraa warqadda cid saxiixdayna may jirin Somaliland ma saxiixin imaaraadkuna ma saxiixin negotiationka faysal galayna waxay la tahay xukuumaddana kama tirsanayn baarlamaankana kama tirsanayn waa mahadsantihiin arrintan ku saabsan imaaraadka iyo saldhigga military iyo khilaafka khaliijka iyo mowqifka aad ka taagan tihiin hal su'aal ayaan rabaa inaan idin weydiiyo waxaad tirahdeen waxaan fiirsanaynaa annaga masaalixdeenna si kooban idinkoo iigu jawaabaya faysalan ka soo bilaabayaa ma la odhan karaa maadaama baashi meel xun oo qaraar ay gaartay waxaad abuuraysaan dadkaad godob u abuuraysaan berri aynan ka saari karin faysal war waxba waxa Soomaaliya ku sheekaysay investmentkii baan nahay waxa $400 baan gashanaya dekedeeda oo iska dhimanaysa la nooleynayaa adduunka kale uu soo eeganaya intaasoo soo socota farmaajo iyo dawladdiisa iyo ciro iyo waxaas naga diidanay annagu bahalka waanu taageersanaynaa waanu hirgelinaa fiiskii hore waa ka dhamaaday la wareegtay tii jirtay kii labaad waxa weeye inay samaysay extensionkii ka saddexaad waa free zone-kii saasay u soconaysaa waanu ku faanaynaa inaan lacag waddankayga la gashaday dad la aamini kara yahay waddan sharci ku shaqeeya yahay waddan dumaaradaya waan ku faanaynaa kana xun nafta waa baan leenahay waayahay faysal aad ayaad u mahadsan tahay iisoo koob adigana muuse ereyga dadkaad godub geliysaan balay fasr maxaad uga jeedaa masaalixdii waxaad tirahdeen masaalixdeenaan fiirsanaynaa meeshanna wax la isu reebtay ma leh waa la iscuna qabateeyey adduunyada diblomaasiyaddii iyo safaaradihii waa la kala qaatay waddamo kale la isu adeegsaday wax proxy warka la yidhaahdo adinkii dhinac waxaad tirahdeen masaalixdeenaan fiirsanaynaa caalamka oo dhan dowladu waliba arrinta khaliijkan kaa sheegay berri waxaa laga yaabaa inaadan hogaamiye ahaan maanta inaad kambeynka ku gelaysid arrintan maya nin godob ummaddii u samaynaya ma noqonaysaa maya kulama qabo ra'yigaa godob baa la gelaya kulama qabo maxaadan u qabin waxaanan kula qabin anuu cid kama duurin cidna isbaanaan dilin dagaal la baanaan gelin adoon gelina horta dhegeyso horta kaas war haygaaga kaygana dhegeyso waxa weeye waa la isqabtay caalamka waxbaa la isku qabtay duruufo siyaasiya la isku hayaa oo ay hogaaminayaan laba dhinac oo inoogna midba ka dambaysa iyo cidda wadda caalamka oo dhamana siyaasadu iskaga hor yimaada qaran waliba isagaa isqiimayo dantiisa eega dantaydu waxay ku jirtaa inaanu raacno xulafada sacuudiga iyo imaaraadka ninka odhanaya maxaa dantaada halkaa raacday waan kula coloobaya hayla coloobo waayo ima taliyo godob aan dadkayga u soo jiiday anuu qadar kuma duulin ismana hayno colaadna uma wado laakiin dantayda halkaan ka dawladda raacayo haddii aad gula coloobayso godob ku qaadayso aday taas waxaan ku weydiiyey naloma yeedhi annaga maya waxaan ku weydiiyey faaraxo waxaad leedahay de kelimaha nagu isticmaalaysa godob iyo waxba kama soo naascadda iyo dee adiga qoladaama kuweysha maa ku saareen imanka Soomaaliya kii u weynaa baa jira muqdisho ay samaysatay magaalada Turkiga kaas ma godob baa mise godob la'aan wey faysal waxaan ku weydiinayaa su'aasha kaas ma godob horta ka iga jawaabo ka Turkiga su'aasha markaan ku weydiinayo ka Turkiga jawaab horta Turkiga halkan Hargeysa waa uu joogaa kaas waxa marusha maxaa ka odhan weyday ma godob baad gashay oo waxa ku leedahay imaaradu wuxuu ku leedahay ku jira aad tahay ballan qaadiyana aad samaysay de mowqifkaaga ina cadeysid waxaan su'aalaha ku weydiinay wax godob leeyahay ma jirto waxa way dawlad ka soo boolis bay dawladana way qabatay way ogolaatay anoo mucaarad waan arkay in wax dan gudato waan ku taageeray qofkii meel kale looga yeeray isaga jira laakiin this our the interest of our people dadkay waa dantii dadkay aan eegina cidna uga habran mayno hebel wax sayna yeeli mayno
waayahay doodda halkaas ayay nooga sii socon doontaa weli halkaad nagala socotaan akhyaarta hawada nagala xiriirtay waa laanta af soomaaliga ee b b c oo aanu galabtay si toosa idinkaga soo gudbinayno magaalada hargeysa waxaana ay dooddu dhex mari doontaa murashaxiinta saddexda ah ee markaasi u tartamaya madaxweynenimada somalilan faysal cali waraabe muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan ciro waa hagaag waxaan ku laabanaynaa qodobkii ku saabsanaa dhinaca musuq maasuqa oo hadday aan meel ka taabannay waxaa ballan qaadeen in aad wax ka qabanaysaan inkasta oo arrintaas aydnan culays aada haddana siinin laakiin waxaan jeclahay in aan markan dhinac kale ka fiirinno iyadoo weji kale leh somalilan waxay ka mid tahay meelaha dhallinyarada aadka u badan ay ka tahriibaan ee badaha ku dhinta waxaana ugu wacan ayaa la leeyahay musuq maasuqii oo keenay in dhallinyaradii shaqo la'aan ay noqdaan markan waxaan ka bilaabayaa ciro siyaasadaha aad la imaan doontaa maxay yihiin si arrintan aad wax uga qabato guud ahaan dee waxaa la og yahay waddamada dunida saddexaad ee somaliland ka mid tahay marka la eego populationka 70% ka badan inay da'yar yihiin oo dhalinyaro yihiin maadaama 70% dhalinyaro yihiin dhaqaalaha dalkuna uu hooseeyo waxaa jirta shaqo la'aan badan waxaa kaloo dhalinyaradu aanay lahayn xirfadihii ay ku shaqaysan lahaayeen marka guud ahaan qodobka koowaad waxaan ku talagalkayagu wuxuu yahay in dadka xirfada loo abuuro xirfadda ka sokow laakiin jaamacadaha ee somalilan arday badan ayaa sanad walba ka qalin jabiya xirfadihii meel noo dhig dad kuwa digriiga watay maxaa ugu tala gashay waxaa kaloo noo qorshaysan oo dee iga soo dhex gashay in maalgashi gudaha iyo dibaddaba loo doono mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqada abuura oo ay ka mid yihiin warshaduhu oo ay ka mid yihiin madaaradu ay ka mid yihiin dekeduhu ay ka mid yihiin waddooyinku waxaa noo qorshaysan in sektarada somaliland hodanka ku tahay ay ka mid yihiin xoolaha iyo kalluumaysigu iyo macdantuba la kobciyo si looga abuuro shaqo dhallinyarada waxaa noo qorshaysan barnaamijkayga ku jira iyadoo waxyaabaha la eegayo in la abuuro 5 sannadood ee hore 15,000 oo shaqo oo dhallinyarada loo abuurayo waa barnaamij qurxoon oo kugu soo laaban doonaa su-aashaas meeshaas su-aalan kaa weydiin doonaa muuse biixi arrintan musuq maasuqa iyo dhallinyaradan yaacaysa iyo shaqo la'aanta taagan maxaad doonaysaa inaad ka qabato waa 3 qodob oo kala duwan iskuna jira musuq maasuq waa aafo xukuumad ahaan iminka waa bilownay sidii loo dagaalama institution baan u samayn 100% maanaan baabiin waa dagaal bilowa dagaalkaa waa xoojinayna musuqa in loo dagaalamo waa go'aan 2 shaqala'aanta 2 qodob baanu shaqala'aanta ku dhimaynaa marka hore si aad shaqo u abuurto waana dhaqaale hesha dhaqaalihiina dowladda ictiraafsan yahay oo institutionska caalamiga ee ay lacag banka adduunka iyo lacag ka maadaminayn marka waxaanu haynaa fikradda ah lacag nagu filan oonu shaqo ku abuuro dalkaygu haysta sidaad ogtayba caalamka maanta lacagta waxa haya shacbiga private sector ka haya dowladuhu facilitation bay sameeyaan caalamku ka guuray sidii shuuciyaddii hanti wadaagii iyo socialistkii ay dowladdu lacagta haystay wax walba abuuraysay marka waxaanu u baahannahay haddii ay privatekii lacagta hayaan waa in privatekii horta dee xoolaha waxa la maalaa marka si wacan loo daajiyo ee caafimaad la siiyo marka private sectorkii ama shirkadii gaarka horta waa in iyagii loo sameeyaa damaanad iyo amni iyo xaaladay ku shaqayn karaan deeta iyaguna lacagtoodii ay ku aamini karaan inay ku abuuraan warshado iyo wax lagu shaqeeyo marka tallaabada hore halkay lacagtu taallo private sectorka ah iyo dowladdu waa inay isla gartaan dabeecaddii ay ku maalgelin lahaayeen dalkay shaqa ku abuuri lahaayeen shaqa abuurkood kaas ka imanaya ka labaad dowladdu dhallinyarada markay ka baxaan jaamacadaha waxaanu samayn doonaa wixii loo jira shaqa qaran
oo lagu soo tababaro waxay arrin ku soo qaataan iyaguna isku bartaan saddex caalamka hore u maro dhan waxaynu ka baran asia weliba china india malaysia mid walba dibeg si aad uga baxdo shaqo la'aanta mar qura boodi maysid oo gaari maysid electronicska iyo information technologyga waxaa la bilaabay horta in dadka lagu jeediyo dhulka oo ay la soo baxaan cuntadooda qudradigooda saddexdaa tallaabaan u qaadayna oo noo qoshaysa horta waa hay-addan uu ku celcelinayo muuse uu leeyahy waanu samaynay hay-addaas nin kulmiye ahaa oo saaxiib lahaayun ba loo sameeyo oo waxay qabataa ma jirta budgetna waa la siiyaa wax cid la qabtay oo la yidhi waxba musuqmaasuqay weli lama hayno adiga laakiin maxaa ka anigu waxaan ka qabanaya waa mida ka horta dadka shaqaalaha ilaa wasiirada waxaan siinaya mushaar fiican insha allahu tacaala xaggee ka imaanaya mushaarka waxa weeye dalkan waxaan doonayaa waddankan waxaan doonayaa investment la geliyo oo horta dhigna jawi maalgashi mid dibadda iyo gudahaba waxay qorsheensan boqolka maalmood horeeya inaan soomaalida Somali business community-ga meel kasta jooga baan halkan shir ugu qabto su-aasha waxay ahayd ka wari dhibaatada mashaakilkan corruption-ka iyo corruption-ka waan ka jawaab waxaan dhalinyarada yaacaan war dhalinyarada corruption-ka waxa ka dhaxaysa shaqa la'aanta ka yaacaysa shaqa la'aanta shaqa la abuuraya waxaan ku yidhi waxaanu sameynaynaa jawi lacag lagu gashadaan sameynaynaa waddanka soomaalida baacmisharigeeda oo dhan waxaan ku casuumay waxaan leenahay Kenya iyo meelaha iska kala kan gashada waxaanu sameynaynaa noogu jirta German Somaliland Business Forum baanu sameynaynaa oo maalgeliyaasha German-kan u yeedhin hadda insha allahu tacaala kanu Berlin ku qabanay kiisaan ku qabanaa waxaanu sameynaa sharci wanaagsan oo lagu maalgashado waxaan sameynaa hay-adda maalgashiga Somaliland baan samaysanaa oo xafiisyada kala dhuman ka joojino taasaa siinaysaa waxaanu sameynaa hay-adda la dagaalanka ee monitor garaynaysa shaqada dowladda oo hay-adaha dowladda oo sanadkii report soo saaraysa oo meeshii tiraha halka waxba ka jira la faayil garaynayo sharci baanu ku soo dilnaa dalka waxaanu keenaa cadaalad haddii marka shaqada yar cadaalad loo bixinayo waxba may xumaadeen cadaalad darri dadku yaacaya faysal halkaas su'aalan kaa weydiiyo arrin inta badan dadka niyad jabisa waxay tahay nepotismka ama nintoorsiga wax haddaad heshay waa cadaalad daro inamadii ka soo baxay jaamacadda ayaa kii wasiire badan lahayna shaqa la siinaya kii aan wasiir lahayna shaqa helin kii aan wasiirba lahayna waxba helin oo wixii yaray soo baxaba la sameynaya aqoontiisa horta waxa ka horeysa taasaanu baqtiina adeerkiisa taasaanu baqtiina waxaan doonaa cadaalad siinaayo qofka lagu shaqo geliyo miiridkiisa iyo nambarkii ka helay iskuulka iyo aqoontiisa waxaanu sameynaa iskuulada farsamada ayaan 5 aan doonaa inaan ka dhigno iskuulada farsamada ardaydu ay tagaan waxaan nagu soo biiray reer miyiga xooli ka baxeen oo iyagu u baahan in la farsameeyo iyagana crash program soo sameynaa 6 bilood baanu sameynaa oo bartaan si wax loo rinjiyeeyo sida marmarka loo dhigo sida magacanaysa nijaaradda sida loo kalluumaysto waxaanu sameynaa in ummadda waan kala shaqo geynaa geen hore iyo geen dambe waxaan doonaa dadku shaqaysan ka dhigin haddii la yiraahdo cadaaladana keenaysa cadaaladda maxaa laga helayaa cadaalad kitaabka ilaahay sunnah rasuulka laga helay calayhi salaam kaasaanu keenaa insha Allah cabdiraxmaan bismillaahir rahmaanir rahiim yani waxay la tahay arrinta musuqmaasuqa nidaam baa jira ee ku saabsan maaliyadda iyo qandaraasyada xukuumadda kulmiye markay timi waxaa jiray ilaa guryo ka badan 1,000 oo dawladdu lahayd guryaha waa la wada iibiyey waxaan u malaynayaa wasaaraddii ay ku jirtay wasaaradda duurista mooyaane cid kaloo qandaraas lagu bixiyey 1,000 iyo dheeraadka kale ma jiro waxaan ahayd hantida dawladdu waa iibin kartaa laakiin waa in qandaraas oo tandar lasoo bandhigaayo ciddii iibsanaysaba intaasoo guri waxaa laga yaabaa kolba qof guri in laga iibiyey transparent maahayn arrintaasi hanti badan baa jirta waxay la tahay annagu waxaan nidaamka dee maaliyadda dalka u yaalla baanu waafajin doonaa haddii xukuumaddu iibinayso mana jeclin maynaanu hanti xukuumaddu hanti dawladdu leeday leeyihi markii nidaam uu yimaado ama dawlad ay timaado raggan waxba haysanin inay ka taajiraan xukuumaddina ka mid yihiin dawladdaada haddii aad guulaysato arrintaas maxay ka qaban doontaa rag hadda suuqa jooga oo waxba haysan oo berri guryo jeexan doona haddii aad guulaysato haddii la arko maxaa samayn doontaa iminka waxaan xisbi ahaan samaynay xisbiga dhexdiisa mareeg ama website la yidhaahdo qof waliba hays caddeeyo waanu jecelnahay shaqaalaha dawladda iyo wasiiradana in mushaara ku filan la siiyo oo lala xisaabtamo waa mahadsantahay muuse
hadala soo waday haa haye cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi guryaha la iibiyey qandaraas lama marin taasaa dhacday shaqaalaha saastaan ku yidhi waxa qura weydiinay waxa weeye haye cabdiraxmaan muu ahay nin bannaanka taagan ninka labaad awoodda labu ahaa hadday dowladdu qaldantay isagaa qaban lahaa jeermaankii baarlamaanka wuxuu ahaa wakiiladu oo intuu soo dhigo odhan lahaa waxaasoo qaladaan cid joojiye ma dhicin ma markuu waddan noqdo arkaya muusow taas waa ka soconnay arrinta uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan ee ah qof walba inuu sheego hantida uu leeyahay marka xilka uu qabanayo haddii aad guulaysato ma samayn doontaa nacam waa tala aad u wanaagsan midna waa kugu raacsanahay haye in anigana dembi iga tahay iyo doqonnimo dadkana dulma ay ku tahay nin maanta suuqa joogo waxbaan intuu dowladda wax ka noqdo inuu ka taajiro dembi cad baan u arka haddaan kusii daayana anna waan la qaba qarankuna anu iga sugayn wax ka qabto diyaarna waan u arka faysal horta waxa guryaha la iibiyey waa runtiisa guryihii waddanka oo dhan waa la iibiyey ma guryo keliya maaha boona maa loo tala ay dhegeyso boona maa loo talaabay waxay ku dadkii iibiyeen horta ee u badan ee intuu baarlamaanka yidhi intaasoo guryaha jiro waanu iibinaa warqaddii madaxweynuhu ka akhriyey madaxweyne siilaanyo 2014kii baarlamaanku ahaa ninkii waxaa ka shaqeynaa imika wuxuu la joogaa cabdiraxmaan buu la joogaa ninkii guryaha badankooda iibiyey cali maraxan yar buu soo gaadhay waxa weeye waxay ku fileen inuu guddoomiyaha baarlamaanku uu soo abuuro biil soo sameeyo soo curiyo mashruuc sharci oo odhanaya guryaha dawladda ee shacbiga iyo dawladdu lahaan jirtay lama iibin karo oo resolutionkaad soo baxo oo baarlamaanku u footeeyo uu dawladda account wuxuu waa check and balance checkii baan maqnaa marka cabdiraxmaan inuu cawdo inuu ka cawdo maahe way ku wada jiraan kulmiye iyo cabdiraxmaan ilaa iyo beri dhaweyta saaxiib bay ahaayeen stationka way ku heshiis bay ahaayeen dalka in la iibiyo guryaha heshiis bay ahaayeen in la koriyo guurta heshiis bay ku ahaayeen waxba inaan isugu keen balbalaadeen inuu cabdiraxmaan ka dhigin muuse keligii waxaa samaysay isaga la joogta maanta intii kale isaga la joogtaa anaga waxa hagaajinayna change-ka anaga keenna change waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadday arrimo badan aa sheegtay oo aa wax uga qabanayso shaqo la'aanta weliba waxaa ka mid ah in xoolihii dhinacoodii wax badan aad si qabato 15 kun oo shaqaan abuuraya ayaa tiri waddadee rabta inaan marto waan sheegayo marka hore dadka in xirfad loo abuuro laba in kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqooyinka abuura maalgashi dibadeedii mid gudaba loo sameeyo ay warshaduhu ka mid yihiin madaaradu ka mid yihiin waddooyinku ka mid yihiin in khayraad badan baa somaliland ku jira oo ka mid tahay baddu haddii sektorkaa la koriyo waxaa leeyahay shaqooyin fara badan baa dhallinyarada looga abuuri karaa xooluhu waa la mid macdantu waa la mid waxaa noo qorshaysan insha allahu qaabkii dee loo baadhayey macdanta shidaal ka mid yihiin in wax laga bedelo waxaan ku kalsoonnahay haddii dowladda wadani timaado in shidaalku soo bixi doono 2019 وهاجك هذا يا دوما تنتين سؤال كلا أيان روانا نوجد بنو أو عن مال يركتها بنو هرنا عن أصول دافني فيصل أيان روانا كبلا وولب عن وقت كنا كفائدة سنة سوق وكابلو فيصل قبلنا سومالي جار كاتهين هذا الله كل كلنا والله يا حرير نوعية يدوني سائنا لسه ما يستوها ديات حكومة قعنت كدكتو أنا قهرت سومالي ونومت إذا كانت الصوص على سومالي بدنا بصوص عرتين واحد بدنا إلى متر طلقوا على سومالي يسكت السماء أنا قد سومالي واحد نسكوه السنة مترتو حدوده ديسبيوت ماله أو أنا قد سومالي سكوه السنة مدحويني هوريك كان منا سوري أنا أوضن ولا تنحرر كي يلا نيسان أنا قوان شعل إنه سواب الصومالي عد كسبة توبي أو صومالي هم حتى حرير وين طلع لنا لكن واحد نديدنا أنتوا ريال يرميال فريستو إنه إلى هاد دلبان هو كده سومالي يا صومالي بدنا هرجلستان BBC دون ووضع استحاد صوص أرتان ويدل اسمودان ويدل نجاش شيكتان يتم أوقعنا أنا جه هدي على إيران وأنا وروا بومبونستان وحنا نكاس نوتشوا ما نسكت احترامنا حتى نوت مادان ما ندونين نكاس يعني حتى وبومبونستان هو حكدكتين إنستوش سومالي لو بابيا كدكتين أيها كوي شوغان نيروبي كوي حمر شوغان وانوغن هاي تنا إذا كبومبونية سوم أنا وسوما هذا الفيصل كهذا أنا وإذا أنا سايسن متى سومالي اسمه هايسنو ويه قبل الله حد ما ينو أنا قبل كلا هذا وما تصنت موسى وحردورنا xiriirka naga dhaxeeya annaga iyo Soomaaliya iyo gobolladeeda
inuu ahaado mid aad iyo aad u wanaagsan oo walaaltinimo oo wax isdhaafsanno hadday baacmushtar tahay hadday aqoon tahay dad walaalaabayno ismaynaa nicin somaliland ma dhibca soomaaliya waxa weeye danteenna ba isqaban weyday laba guri laba qaran oo walaala ah oo waxistara oo si wacan wada nool baanu doonaa inay ahaato waxna caybsha iyo wax colaada midna uma qabno wixii dhammaaday wuu dhammaaday ee dhibaato dhacday waxaynu u baahan nolol cusub bilowno taa waxaan isku haynaa wararta bal labadii qaran lixdankii isu yimidoo mid walba halkii soo dhistay aan noqon walaaltinimana ku noolan midna ogow jaarkaaga ma dooran kartid ilaah baa iska dhigay waanad marba wanaa kula noqotaa jaarkaaga iyagoo laga waayo mooyaane waa mahadsan tahay cabdiraxmaan guud ahaan wadamada jaarka waxaanu doonaynaa deris wanaag inaanu kula noolaano ama jabuuti ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto ama etoobiya ha noqoto ama kuwa badda noo dhaxaysa ha noqoto himiladaydu waxa weeye inaan dhiso qaran somaliland la yidhaahdo oo nabad kula noolaada dhammaan deriskiisa wuxuu kaga duwan yahay soomaaliya waddamada kaleanu jariska nahayna ma jirto waa dal aanu deris nahay colaadna uma hayno dhibna uma hayno laakiin waxaanu doonaynaa inaanu xaqiijinno inaad somaliland noqoto qaran madax bannaan oo dunida ka mid ah haddii alla ka dhigo waa mahadsantihiin faysalan ka soo bilaabi doonaa arrimaha qaarkood waa isku diidantihiin qaarna waa isku raacsantihiin waxaad tiri faysalow dawlad waxaan dhisi doonaa loo dhan yahay oo wadaag ah haddaanan khaldanayn sidee doonaysaa haddii aad guulaysato in asxaabta kale ee aad ka guulaysatay aad u wada macaamishaan oo aad ugu gacan haatiso waxa weeye anagu marka bisha 10keeda u dambaysa haddii la yidhaaho kambeynkii waa brito wixii biri laga bilaabo waxaanu dad reer Soomaaliya dadka u siman baanu nahay xirfad nagama dhexeeyo tartan nagama dhexeeyo dawladda dhisi doona insha Allah taala technocrats bay noqon doontaa wasiiradii hore inuu ku jiri maayaan rag waxa dad cusub oo noo hawdi garanaya ayaan dhisi doona insha Allah taala oo ku abtirsan saddex xusbiba oo kooban baan dhisi doona insha Allah taala oo waxaan doonaa dalkan inaanu kicino oo sharaftu ku lahaa I want to Somaliland great again aan ka dhigan doonaya sida 60kii ahaan jirtay ee East Africa caanka ka ahayd ee Soomaaliya dhexdeeda caan ka ahayd ayaan Soomaaliya insha Allah taala soo celiyay sharafteeda xisbiyada kale waxaanu la macaamili doonaa si wanaagsan sida sharcigu ogol yahay saaxiibtinimada ogoshahay danta Soomaaliland ku jirto inaanu arrimaha qaranka u midoono ixtiraam iyo qadarin iyo la tashi waayo waa xisaab qaran oo tartanay haddii aan ka helo waxaan sii doonaa ixtiraam badan iyo watashi badan iyagoo laga waayo mooye ta dawladda dee xisbi baa guulaysta xisbigu barnaamij buu leeyahy markaa xisbiga kale barnaamij ka duwan buu leeyahy marka haddii qof xisbigaa kale uu dan moodo inuu xisbigiisa ka baxo oo barnaamijka xisbiga raacayo kulmiye way furan tahay laakiin xisbi kalena ka qayb geli maayo waayo laba barnaamij aan kala wadanaa waayahay waa mahadsantahay cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم أدي وطني قرن كوجوليستو دولة وداع أنا ودي سمينه دولة ككوبان حسبي وطني أما حكومة ككوبان حسبي وطني أنا ودي سدونا لبدا حسبية كله سيد دستور كتلمام أيو وحنوا قنصنا أحزاب قرن أو مضن احترام كوده أو معارضة waatan kuu sheegay aan kali nimankan laakiin faysal waxa weeye waxa ku tusayaan nimankan isbedel u doonayeen muranka ah mucaarad iyo maxaafid ee kolba wadanka ka qabsada oo keligii oo urursado oo tuu doono ka yeelo iyo anaga waxaan doonaa taas khaladna ma aha ceebna ma aha waa ceeb weyn waan ku khasaar waa mowqifkiisa waan ku khasaarnayo waxaan rabaa inaan hal su'aal kale idin weydiiyo waan midaan ku soo gabagabayn lahayn annagoo waqtigana dhowrayna guddiga doorashada ilaa iyo iminka hawsha uu soo waday sidee u aragtaan faysal hadda ammaanan yihiin ilaahina waan mahadnaqaya subxaana wa tacaala inuu nabad noogu dhammaato beritaan noo hadhay kaambeenka beritaan insha allahu tacaala iyaguna si fiican bay u mari doonaan waanu hambalyanaynaa guddiga doorashooyinka waxaanu jecelnahay qof kastoo reer Somaliland inuu noqdo gudoomiyihii iyo guddiga doorashooyinka uu bahasha ilaaliyo
oo caadifad qabiil iska ilaaliyo uu booliis noqdo waxaan ammaanayaa ciidamada ammaanka kuwa xuduudda jooga iyo kuwa booliiska waan ammaanayaa waxaan leenahay tana goolkaas tacaala aynu si fiican u wadhalino si nabadgelyo ilaahay subxaana watacaala haynagu dhaco waana ammaanaya guddidaasi aad iyo aad bay u ammaanaya ku kalsoonahay horta faysal qodob waan ku diidanahayo kanuu nagu naqdiyo leeyahay waxay doonayaan inay muran mucaarad maxaafid geliyaan saddex xisbo jaad markuu isugu keeno meel oo mid laba brograam gaara haysto sidee gudihiisa ay uga soconaysa xisbiga ayaa brograamka lagu doortay qofka lama dooran marka xisbiga waa inuu dowlad brograamkii xisbigiisa ay ka dhisaa xisbiga faysalinka ka imanaya waa inuu ka baxa ka horarta marka hore oo brograamka gidday soo gala laakiin anuu garan maayo aqalgaa u faysalay saddex xisbaan isku walaaqaya waa ilata taa commissionka aad iyo aad yaan u bogaadinayaa si wacan bay u shaqeeyeen waanan ku kalsoonahay waanan u ducaynaynaa inay hawshaa ku guulaystaan saa iminka wadaan u wadaan waana bogaadinaynaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan la qabaa un odayaasha iga horreeyey in shaqadu komishinku ay qabteen shaqo wanaagsan tahay oo maanta aynu joogno inay doorashadiina soo gaadhsiiyeen insha allaahu waxaan rajaynayaa dhammaystirkeedana inay si wanaagsan u dhammaystiraan waxaan rajaynayaa dhammaan somalilan in arrintaas ay ku guulaysato si nabada su-aasha ugu dambaysa waxay tahay doorashadan dhici doonta 13 bishan ee isniinta ah natiijadeeda faysal haddii aad guulaysato iyo haddii lagaa guulaysto ma oggolaanaysaa anigu dee hore aan u oggolaaday tana waan oggolaanayaa qoladan aan weligood oggolaana xadhigii isku dabi lahayn baan soo soohaya insha allahu tacaala koley way naxayaan dhacninka may baranay ya waxaan leeyahay isdeldela haddaa dhacdeen baan leeyahay waayahay muuse doorashada natiijadeeda sida sharcigaa u soo baxda ee komishinku soo saaraanay maxkamaddu waana hoggaansamaya cabdiraxmaan natiijada doorashada ee si wanaagsan u dhacda si sharciyana ku soo baxda waa aqbalayna si wanaagsan iyo si sharciya xogaa meeshaas ma moodaa in lug ay ku laaban tahay trump baa saa yidhi berigi moogta mid cadaalada wagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkan dooda ah ee aad nagala soo qayb gasheen ah barnaamijkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee b b c ay laanteeda afka soomaaligu qabato akhyaarta wada nagala xiriirtay barnaamijka waxaa sidii aad la socoteen ka qaybgelayey murashaxiinta tartanka madaxweynenimada ee somalilan ee dhici doona 13 bisha November oo ah maalinta isniinta ee soo socota murashax madaxweyne Faysal Cali Waraabe oo ka tirsan xisbiga UCID murashax madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye iyo murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo isna ka tirsan xisbiga Wadani waadin mahad celinaya waqtigiina qaaliga ah ee aad halkan noogu timaadeen maadaama weli ololihiina uu socdo waxaa kale oo aad si toos ah ugala socoteen facebookga iyo tviyada home cable iyo tvga SBC waxaan jecelnahay barnaamijka inaan intaa kusoo gebagabayno waxaan u mahad celinayaa akhyaartii BBC-da ee barnaamijkan gacanta weyn ka geystay gaar ahaan soo saaraha barnaamijkan Axmed Saciid Cige iyo Mawlid Xaaji Cabdi oo wadajir barnaamijka u soo saaray iyo dhammaanba intii soo abaabushay istuudiyayaasha ee London iyo Nairobi barnaamijkii intaa ayuu ku dhan yahay dib waxaan u kulmi doonaa haddii uu eebbe idmo caawa 9 haddiise uu idin sheegay barnaamijkan waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan bbcsomali.com ama waxaad sidoo kale dib aad uga daawan kartaan isla facebookga waxa kale oo aad sidoo kalena aad fikradihiina aad ku reebi kartaan facebookga iyo twitterka waxaan idin leenahay akhyaarta hawada nagala xiriirtay barnaamijkiina waa naga intaa dib waxaan u kulmi doonaa caawa 9 inta ka horeysana sidaa iyo nabadgelyo xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil
ku hel lacagtaada ii dahab adigoon isowleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana aayar fariinta lacagtaada ka eego mobilekaaga somtel baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kale ah current account saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international